Dowladda Jarmalka ayaa qorsheynaysa in ay bixiso 20 milyan oo euro una dhiganta $22 milyan oo doolarka Mareykanka si wax looga qabto abaarta ku dhufatay Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya oo saameyn taban ku reebtay malaayiin ruux. 1.4 milyan oo ruux oo ka mid ah 7.7 milyan oo abaartu ku saameysay Soomaaliya ayaa u baahan gargaarka degdega ah maadaama dhulka deegaanka u ahaa uu qalalay. Waxayna waayeen biyo ay cabaan iyo daaqa xoolahoodu u baahan yihiin. Jarmalka ayaa kaalmadan ku soo shubay sanduuqa taakulada ee qaramada midoobay si gargaar bini'aadanimo loogu bedelo loona gaarsiiyo dadka ku nool dalalka xadwadaagga ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya. Roob yari, colaad sokeeye iyo dhaqaalaha dowladahani oo liito ayaa sababay in qoysas badan ay waayaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah dhanka nolosha. Taasi waxa ay ku qasabtay in ay isaga tagaan deegaanadooda. Jarmalka oo daba socdo warbixino ay soo gudbiyeen hay'adaha qaramada midoobay ee beeraha, qaxootiga, caafimaadka ayaa ku dhiirraday in ay kaalmadan la soo degdegaan si loo daba qabto malaayiin xaaladaha adag la daalaa dhacaya. Maxamed Muxuudin Abuukar, Maxamed Toxab, Jawhar TV, Muqdisho. aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay